ilmaha ma ahan inay qof waaweyn yihiin. Ilmo waxaa la arkay study la sameeyey ilmo 24 months ah 2 sano jir ah oo already doorka waalidka ciyaarayaan la arkay. doorka waalidka marka uu dhahay kullu ha fiirinin kullu cunug inuu waalid noqdo ma ahan, laakiin in cunug stresska waalidka loogu talagalay in ay qayb ka qaato oo exposed ku noqdo oo lagu soo furo. So cunug yar oo 2 years ah waxaa arkaysaa already parent-fied child lagu sameeyo oo stresska waalidnimada kusoo furmay. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ولاشينا سعاد فيديو كان ما توحوا قال موضوع حساسي أوان مهم قفل بونا قصيا فيديو كان مهم هنا والد أهات تحرجنا إن شاء الله إنا كل جروح كفاء إنه فيديو كان وحوا قال ولقى ما أركتي المير أو سيد قفوينا كل رقم ولقى ما أركتي المير أو الولاية أو كول ولاية ماشوا صيح لها أي بريوح عن لها كول ولاية فرحة والد كيس أو ربو كول ولاية درينك دتك جورج الجوجان oo rabo qof walba inuu habi ka dhiga. weligaa ma aragtay ilmo yar oo 7 jir ah oo shaqeynaayo shaqadiisa aan ahayn shaqo loogu talagalin ku shaqeynaayo. ilmo yar shaqo looguma talagalin, laakiin ilmo yar oo ku qasbanaa inuu shaqeeyo. ilmo yar 13 14 15 years old shaqadiisa aan ahayn ka shaqeynaayo oo physically culays weyn soo saaran. weligaa ma aragtay cunug ma gabar yar oo guri dhan hayso oo guriga u maama ah ilmo u maama ah ay xanaaneynay ilmo ka yar walaalaheeda ka yar oo gurigii dhan eedan howl badan ka hayso hoosh hooyada ka hayso iyo hoosh eeda hayso hoosheeda inay badan tahay mise qayb ka qaadatay hoosh hooyada aydan ay half ay kala barteen aydan half sameynay oo hooyadan half sameynay mise hooyada hal dhinac eeda uga hayso sida ilmaha in eeda oo hayso mise ilmaha dhexdhexaadiso mise ilmaha isqabsadaan eeda in ilmaha ay kala bixiso dhexdhexaadiso. So doorkii hooyada ka mid ahaa eeda loo dhaafay hooyadan inta kale ku focus gareynay maxaa dhib ka imaan karo ilmahaas oo kale haddii ay mise hooyadii caawitaan u baahan tahay cunugii ay ku qasban tahay inuu caawiyo cunugteeda oo caawitaankiina cunuga oo agekiisa wax ka baxsan ay yihiin oona waqti dheerna sii socday maxaa dhib ka imaan karo maanta taasaan ka hadlaynaa. So parentification or parentification parentified child waa cunug waalid isku bedelay asoona waalid gaarin asoo ilmo ah waalid noqday. So haddii adiga waalid ahayd oo ilmaha oo soo lose garaysay mise soo kaa luntay ilmanimadaadi markaa dib u fiirisaas leedahay alla ilaa aniga ilmanimadayda ciyaalnimadayda ma xasuusto caruurnimadayda ma xasuusto mise anoo caruur ciyow qof weyn noqday because of course of xabadii because of dagaalkii because of traumadii nagu soo wajahday iyo migrationkii oo noo bilowday oo weli sii socdo oo in dadkii marba meel loo qaxo marba meel loo baxo waxay sababtay in waalidiintii ay stress badan soo wajaho oo ilmihii ayagoo ilmo ah dad waaweyn noqdaan waalidiintiina ku qasbanaadaan inay ilmahooda dad waaweyn ka dhigaan because of shaqadii guriga maalmada waxaa laga inay banaanka aado ay soo shaqeyso cunugtii ay doorkii hooyada gasho ilmihii kale la xanaanayso maadaama family weyn leeyahay cunugii oo kasaas oo kaleeto wiilkii inuu guriga mas-uul ka noqdo oo asagana meeshiisa dhinaciisa ka ordo waxyaabahaas dhan marka na soo wajahayo oo ku qasbaneen haddaan ka waalid ahaan aan mise ka qof ahaan aan dib u fiirin alle dhibaatada ay soo gaartay aniga markaan yaraa booska waxyaabahii iga imaaday hadda iska fiirinin waxaa laga yaabaa inaa sii wadid circlekii adigina ilmahaaga ku samaysid at least hal qof ilmahaaga hal qof oo ka mid ah badanaa sometimes waalidiintu hal cunugay la baxaan hal cunugay dhibaatada badanaa ay ku imaadaa waa laga yaabaa more than ilmo inay ku imaado laakiin at least one child ay ku imaadaa badanaana cunuga weynaa guriga cunuga u weyn ay dhibaatada more saameysaa dhibaatada cunuga inuu waalid noqdo asagoo ilmo ah oo doorka waalidka qaato ka in waalidkii safar jiro oo cunuga waalidka hooyadiis maqan tahay ilmihii iyo aabihii isla joogaan cunugta weyn ay qaadanay doorkii hooyada oo kala qaadanay walaalaheeda takargareyne ay xanaaneyne ka inuu vice versa aabihii oo safar jiro wiilkii booskii aabihii qaadanay waxyaabahaas dhan marka mise hooyadii oo stress ku furan yahay oo aabihii iyo hooyadii kala tageen oo divorce u baahan caawitaan cunugii oo ay uga baahan tahay emotionally. So laba shay waa marka ilmaha waxaa muhiim ah ilmaha waxaa loo kala bixiyaa laba shay waa mid waxaan dhahnay shaqo culus cunugii shaqo culus in korkiisa la saaro oo hoosha guriga mise hoosha banaanka shaqo isaga gaarin inuu korkiisa noqoto oo kasoo shaqeeyo taas waxay saameyn u noqonaysaa saameynta ay ka imaan karto waa ka hadlaynaa marka laba shay u kala bixiya cunuga waalidku isku baxo oo isku bedelo waxaa waa in
howshiisa ka weyn ah physically ahaan oo gacmo ahaan shaqadiisa ka weyn inuu qaato iyo emotionally ahaan tan emotionka please pay attention emotionka sometimes ka daran bata shaqada emotionka waxaa waaye in waalidka cunugii oo isku oo waalidkii inuu qof kale haysan oo ku nafiso oo cunugii oo ku nafiso oo cunugii u sheegto dhibkiisa oo cunugii u sheegto dareenkiisa ilmaha okay waa inaad sometimes u sheegto maanta maalin xun aan qabay mise maanta waxaan dareemaa xoogaha xanaaqaan dareemaa mise xoogaha saadaan dareemaa inaa la dhaho marmar waa okay waa laakiin haddii aa maanta cunugaa u imaadid aa dhahdeed maanta ani aabahaaga waa isdagaalnay inaan kala tagnaa laga yaabaa mise haddaa adiga cunugaa u imaadid aa dhahdeed aabahaagii waxaa ula joogo abuskan iyo dhibaatadan aniga u istixmilo aabahaaga waxaa aniga u haysta waxaa waa adiga idinka daraadiina waa idinka haddaa dhahaa lahayn mar horaan ka tegi laha haddaa dhahdo cunugii wuxuu dareemaa inuu asaga sabab u yahay dhibka kusoo gaaro oo wuxuu isku try garayna wuxuu isku dayaa cunugii inuu ku faraxa geliyo inuu dareenkaaga moor ka warqabo mise da adiga qof saaxiibaa haysan cunugii aad saaxiib ka dhigatid aad emotionally wixii dareenkaa u sheegtid oo dhibaatadan aad haysato meeshaanaa u soconaa mise xaggaanaa sameynaynaa mise aniga waxaanaan ka walwalsanahay mise waxyaaba xataa walaalahooda kale aa ka walwalo kale cunug kale aa ka walwalsantaa u sheegto cunugaan ila caawi cunugtaan ila caawi walaashaada saa u sameey walaashaa saan waaye walaashaada inta kuma fiicno walaashaa inta ka caawi cunugii marka waxay noqonaya in adiga cunugii kale dhibaatooyinkii cunugii kale haysta haddaa cunuga uga sheekaysatid cunugii wuxuu siinaa wuxuu ku qasbanaana in emotionally booskii u galaa inuu cunugii kale oo teekar gareeyo in cunugii kale ka warqabo in cunugii kale oo dhib ka ilaaliyo emotional weynaa korkiisa koraay oo cuniga uu isleeyahay adiga aa ku shubtay adiga aa gaarsiisay ilmaha markay yaryihiin sida waalidka shaqadiisa waxaa waay inuu ka ilaaliyo ilmaha waxyaabo kastoo cuniga dhib u keeni karo ka nafsi ahaan ka ruuxi ahaan ka jasmi ahaan waxyaabaha waalidka cuniga u fasaxaa inuu access u lahaadan waa inay ahaataa wax da-diisa la socoto ka shaqada guriga ka sheekooyinka iyo akhbaarooyinka iyo newska iyo waxyaabaha u fiirsanaya ka emotionka waxyaabaha dareenka iyo problemada guriga ka jira looga sheekeynayo waxyaabo yar ilmaha okay waa inay problem arkaan laakiin waxaa la diidaa in cunugii aad dareensiis for example cuniga wax ka halaawaan waxyaabaha emotionka idinka sheekeynaya oo meesha emotionka oo cunug waalid emotion cunug oo la siiyey emotion oona da-diisa ahayn lagu furay dareenaan da-diisa ahayn oona qaadan karin caatifooyin asaga diyaar u ahayn se cunugii oo lacala wacasa for example tusaale cunug hadoo wax kaa halaayo oo wax qaso guri dhan guri wax ka qaso u imaadid oo dhulka wax kugu daadiyo kaleeto u imaadid aa dhahda allah wixii experiencegii aa cunugii kor ka saartay aa dhahday adaa saan samaysay ahbalaa tahay dabaalyo stupidyo maxaa waxaan u samaysay horta lazyaa tahay mise maba joogin waa iska maqmaqneed maskaxdeeda xaggee jirtaa waxyaaba haddaa dhahda cunugii oo marka waxyaabihii ficilkii dhacay adiga waalidka markaas waxaa sameynaya waalid oo ma ahan oo stable ah ma ahan waalid isaga buufis ku furaya waa waalid stress ku furaya waa waalid aan present ahayn waa aanan joogin oona ka warqabin laakiin wixii marka cunugiya marka waxyaaba dhahaysa label u sameynaya cunugii waxyaabihii wixii badii ka weyn wixii cunugii sameeyay qofka waalidku ma arkaayo oo cunugan wuxuu halayay dhulkan wax ku halayay wuxuu daadiyey ilmo waaye da-diisa waa wax kaa dhici kara waa mas isaga naftirkiisa daadi kara waalidka waa wax dhici karo accident dhici karta waay instead of accidentigi inuu accident ahaan u accept garay u ogolaada maraba waalidka wuxuu sameynaa cunugii oo blame garayna cunugii wuxuu ka dhigaa sida qof asaga adaa sabab u ah waxaa hadda dareenka aan dareemayo adaa igu sababtay so cunugii wuxuu dareemaa labelkii waxyaabihii horta la dhahay dhan uu qaadana labelkii dhan uu qaadana oo isfahansiinaya waxaan la dhahaa anaa dabaala anaa anaa lazy ah anaana ka warqabin haddaan iska fiiri lahaa meesha u socdo aan arki lahaa waxaa igama daadan lahayn cunugii wuxuu dareema dareenkaas anaa korka ka raayo marka waxyaabihii la dhahay oo qaadana markuu weynaado marka ilmihii oo sas lagu soo sameeyay kuwa shaqada hooshooda ka weyn loo saaray ee kuwii dareemooyinkooda ka weyn kor laga saaray oo ciyow loo furay stresskaas labadooda markay weynaadaan xataa ay yaryihiin iyaga weynaanin oo tufuuladooda waxaa kusoo baxay karo calaamooyinka laga kasaayo waxaa waaye cunuga in madax xanuun badan keeno hadig badan cunuga inuu keeno anxiety welwel badan cunuga inuu ciyaartiisa yaraato sida ilmaha kaleeto na ciyaarin cunuga inuu activiyada waxyaabaha dhaqankiisa sida dhaqan ilmo da-diisa ah oo kala sameynin oo sida qof weyn oo kale u dhaqmaayo in cunugii mar walba
oo jagareynayo waalidka rabo inuu ogaado waalidka happy miya waalidkii dareenkiisa ka jagareynayo bas dadka kala dareenka more cilmi sensitive ay noqonayaan waxay dareen badanaan ilmaha usually saas noqdo waxaa waaye ilmaha sensitive-ka ah naturally iyagaba sensitive-ka ah ilmaha koodii horeba iyaga dareemooyinkooda caatifadooda oo naxariista ku badan tahay ilmaha gifted and talentiga ah ilmahaas waa ilmaha badanaa oo waalidka isku bedelaan iyagoo yar because already ilaaha ku abuuray dareenkooda ka dheer kuwa kaleeto ilmaha kale so waxay isku dayaan in waalidkooda habi ka dhigaan waxay isku dayaan in waalidkooda dareenkiisa ka warqabaan so howsha taasay koodii hore ugu soo furmaysaa so cunugii cunuga haddaa ku aragtay cunugaaga in maanta dhan oo kaa walwalaayo oo ka walwalaayo walaalihiisa markay ilmaha isqabsadaan oo rabo inuu isaga solve gareeyo problemka ilmaha solve gareeyo adiga kaa ilaaliyo oo dhib adiga distraction kugu sameyno asaga wixii solve gareeyo rabo inuu wixii asaga handle gareeyo rabo inuu asaga dhexdhexaadiyo rabo ilmihii kaleeto doorka sida qof weyn oo kale ciyaari rabo cunugii hadduu calool xanuun badan leeyahay hurdadiisa dee hurdo fiican lahayn so all that stuff waxaa calaamooyin u ah cunuga markuu yaryahay qofka markuu weynaado marka waxay isku bedelaysaa حتى ilmaha markay yihiin waxa kale la xasuusta in cunuga dib ku noqoto oo wax xafdin waay xifdintii dib ku noqonay cunuga waxa laga yaabaa inuu casharkiisa xifdin waay because qaybta maskaxda oo meesha stresska ah more active ah oo furan oo meel walba dareenkiisa kacsan waxay u maleynaa maskaxda waxay u maleysaa in qatar mar walba soo wajahayso oo cunuga stresskaas ku furan so saas daraadeed waxa lahay scan la saaray meeshii amygdalada actually shrinkaysa way yaraanay maskaxda dhankaas taasoo marka saameyn ka saameynaysa dhanka xasuusta iyo saameyn ka saameynaysa mudaakarada qofka inuu xifdinta inuu wax xifdiyo cunugii waxa laga yaabaa inuu waqti badan u xifdin ku badinayo xifdin oona xifdinaynin by the way ilmaha ma ahan inay qof waaweyn yihiin ilmo waxaa la aragtay study la sameeyey ilmo 24 months ah 2 sano jir ah oo already doorka waalidka ciyaarayaan aan arkay doorka waalidka marka uu dhahay kullu ha fiirinin kullu cunug inuu waalid noqdo ma ahan laakiin in cunug stresska waalidka loogu talagalay in ay qayb ka qaato oo exposed ku noqdo oo lagu soo furo so cunug yar oo 2 years ah waxa arkaysaa already parent-fied child lagu sameeyo oo stresska waalidnimada kusoo furmay because waalidkood waxa uga sheekeeyeen maanta waxyaabo xun ama cunugii already looga sheekeeyay in maalidkii dareenkiisa oo usoo gudbiyo cunugii oo bilaabo in waalidkii dareemihiisa ka warqabo oo in waalidkii happy ka dhigay in waalidkii oo care gareeyo so waa wax khatar waay ilmaha markay yaryihiin saas waay waxay kale ka saamaysaa self esteemka ka saamaysaa cunugii inuu self esteemkiisa loo noqdo qofka markuu weynaado xataa way la socotaa self esteemka weyn markuu qofka weynaado self esteemkiisa inuu qofka aragtidii naftiisa sidoo naftiisa u fiirinayo inuuna qofka naftiisa ku kalsooneen self esteemkaas la dhahay inay kalsoonidii ka saamayso in ay relationship ka saamayso badanaa dadka ilmahaas lagu soo sameeyey oo waalid noqdaan iyagoo yar badanaa waxaa waaye relationship oo xiriir waxay sameynayaan qalad ah because xiriir qof asagaba taking care u baahan qof asagaba oo waxyaaba caring u baahan ay badanaa madaxa la galayaan haddana caringkii doorkii haddana waxay noqonayaan caregiver ay noqonayaan haddana caregiver ay noqonayaan waxa qof asagaba u baahan oo la xanaanay u baahan ay la xiriir la sameynayaan doorkii marka xanaanadii ay gabadhii ay sameynay waxaa laga inay wiil xiriir qof ay guursato oo iidii noqoto hooyo aabo oo caregiver everything qaado oo mas'uuliyadii kullu ayda qaado because already waxaa maskaxdeetaas waxaa lagu soo tarbiyadaas dhibkaas ka soo gaaray self positive way noqon kartaa because dhanka positive kana way soo gashaa wax kas negative way leeyihiin positive way leeyihiin aan positive waxa qofka inuu self reliant noqdo inuu qofkii asaga la isku kalsoonaado asaga la dadka kale aaminaada dadka kale ka yaraato oo dadka kale aaminin oo self reliant noqdo self reliant kaasoo marka ay badato dadka la caawitaan aad ka dalbanaynin mise caawitaan aad dadka kale aad u fasixaynin inay ku caawiyaan adiga marka howsha kugu soo badato markii qofka oo waalid noqdo mise oo guursado asaga gabadha inay hooyo aaba iyada noqoto mise ninkii wax kasto asaga doorkiisa qaad wax kasta asaga rabo inuu manage gareeyo controlling kara meesha ka imaada sometimes allah because marka ay yaryihiin waxay badaabayaan inay wax control gareeyaan managingki waxyaabaha hadaan ilmaha deen waxyaabaha ay control ka haysan if they can then manage gareyn karin situationka waxay dareemaan stress
laakiin hadda adiga wixii control garayn kartid stresska ka yaraana sas ahaanay marka waxay u use gareynaa as a coping mechanism inay stress kaga yareeyaan ay controlkii sameeyaan in cunugii wiilka marka soo weyna narcissisnimada lagu arko in waxa waaye jirooyinka diabetes chronic jirooyinkan chronic illnesska oo cudurooyinka oo jirooyinkan xanuunka sokorta iyo dhiigkar iyo waxyaabahaas in qofkii xanuunooyin kusoo baxaan asoo da'yar xanuun ku bilowdaan waxyaabahaas dhan waxaa marka ay ka imaanaysaa asaaskeeda wuxuu ahaa waa qofkii oo caruurnimadii laga xaday waa qofkii oo stress lagu furay asoo caruur ah oon developmentary oona loo saamixin inuu soo weynaado care free ahaado cunugeeru inoon waxba ka yargaraynin oo tufuuladiisa iska ciyaaro noo saamixin duruuf keentay iyadoo oona la rabin qof ilmihiisa raba inuu ku sameeyo ma laha laakiin duruuf keentay iyo awareness la-aan inoonan waalidkoona ka foojigsanayn oona ogeen dhibaatooyinka ka imaan kara hadaa cunigaaga bushkaraysad yes gabadhii waxay ku noqonaysaa gabar guri ku fiican oo guri maamuli karto oo guri hagaaji karto markay weynaato positive ka imaanaya waa taas laakiin waxay noqonaysaa gabar oo xiriir relationship problem ooga imaan karo self esteem lahayn oo kalsooni nafteeda lahayn self reliant ah wax kasta iyada madaxa kor ka saarato waxyaabo badan dhib badan uga imaan karo qofkii oo daakiradiisa iyo xasuustiisa iyo kalsoonidiisa naftiisa iyo waxyaabo badan oo anxiety walwalka badan walwal qofka mental health walwalka ugu muhiimsan ugu weynaa la arkaa depression ku xigo OCD waxyaabaha la dhaho oo qofka waswaas badan oo maanta dhan gacmihiisa dhaqo waswaas badan OCD waxay ka saddexdaas shay lagu linka gareeyaa badanaa marka ilmaha hoosha oo lagu soo furo hoosha dadka waaweyn badanaa dareenka dadka waaweyn waa lagu soo furaa emotionka dadka waaweyn waa lagu soo furaa there is a link way isla xiriiraan badanaa cuniga saas hoosha lagu furo dareemooyinka waxyaabaha qof mashaacirta waalidka mashaacirtiisana wuu ku furaa oo wuxuu responsible wuxuu dareensiyaa in mashaacirtiisana asaga mas-uulka yahay oo asaga u dhib sheegtaa soo labadaas way isku xiran yihiin so marka haddii adiga waalid tahay saas lagugu soo sameey more likely haddaa adiga asla fadhiisanin oo aad reflection isku sameyn oo aad dib ugu laaban waxyaabaha lagugu soo sameeyay aad ka warqabin oo ka wahtaanin oo ka foojegsanaanin waxaa laga yaabaa in ilmahaaga cyclekaas at least qof ilmahaaga ka mid ah cyclekaas aa ku samaysay mise already aa ku samaysay haddii adiga lagugu soo sameeyey iska inshallah video kalaan ka sameynaa weyduu qofka adaltigaa sidoo uga bixi karaa waxyaabaha oo samayn kara maxaa waay inshallah marba inaan ku dheeraado laakiin videogan waxa aan inshallah rajeynaa inuu dad badan gaaro mujtamaca soomaalida ahaan aniga waxaa aaminsana dhibaatooyinkana haysta asaaskeeda dhibaatooyinkana haysta one of them inay tan tahay tufuuladeena oo tufuulo daayac inay ahayd tufuulo oona laga warqabin koriismadii ciyaalnimadii in ilaa hadda xataa ilmo badan ayna doorkooda tufuulnimadoona enjoy garaynoonin because of culturekii iyo dhaqankeena oo saas keenay qayb ka mid ah because of duruufooyinkii oo qaxi iyo dagaalkii nagu soo wajahay inshallah video waxaan rajeynaa in wax laga istafiiday please dadka la share gareeya hadda videogan kusoo gaaro jazakum allah khair like and subscribe thank you so much